ugu yeernay inaan siino shir jaraa'id oo si kooban aan uga siinayno dhacdooyinkii ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo nawaaxigeeda iyo gobolada dalka ee gaar ahaan dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ah. Dhacdooyinka aanu dadka ku siin doono waa dhacdooyinkii amni darro ee ka dhacay magaalada caasimadda ah iyo qaar ka mid ah gobolada dalka oo dhammaantood la xasiliyay hawlgallada ciidamadu ay ka geysanayaan magaalada caasimadda ee Muqdisho ciidamada kala duwan ee qalabka sida jamhuuriyadda hay'adaha ammaanka iyo kuwa difaaca sidaas oo kaleeto hawlgallo ay ciidamadu ku baacsanayaan khawaarijta dadka nabadgelyada lidka ku ah ay ku jiraan dadka ganacsada maandooriyaha burcadda hubaysan iyo dadka tahriibinta uga qayb qaata guud ahaan bahda saxaafadda waxaan isku yeernay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed inaan si kooban u siino dhacdooyinkaas dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo dalka oo dhan iyo guud ahaan caalamka si ummadda Soomaaliyeed ee adduunyada ku dhaqan ay u ogaadaan waxa dalkooda ka dhacaya. Asbuucii la soo dhaafay maalintii Jimcaha ahayd ilaa maanta oo Khamiisa oo 7 bisha December 2023 ah guud ahaan dalka xaaladiisu aad bay u wanaagsan tahay marka laga reebo xaaladaha dayrta El Niño oo meelaha qaar ee gobolada qaar fatahaada ka geysatay walow hay'adihii ku shaqada lahaa ay gurmad gaarsiiyeen sidoo kaleeto ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo hay'adaha kale ammaanka ayaa iyaguna gurmad ka sameynaya dadka fatahaaduhu ay saameeyeen gobolada dalka guud ahaan gaar ahaan magaalooyinka gaarka ah ee fatahaaduhu ay ka dhaceen tirakoobkeena iyo wada shaqaynta ciidanka booliiska dowladda xubnaha ka dowladda federaalka iyo booliiska federaalka ahiba inta aan ognahay ma jiraan wax cudurro faafay oo loo taag waayay oo maantay dalka ka taagan ma jiraan xaalado kale oo musiibo dabiici ah oo aan ka ahayn El Niño iyo dayrtan fatahaadeedu ay badatay walow hadda hakad uu ka jiro roobki markaan u nimaano dhacdooyinka ka dhacay dalka ku soo bilaabay magaalada caasimadda ee Muqdisho asbuucii la soo dhaafay waxa guud ahaan khawaarijtu ay sameysay 9 qarax waxa xusid mudan qaraxyadaasi 8 kamid ah inay ku bartilmaameedsadeen goobo ganacsi waxaad dareemi kartaan sababta goobaha ganacsi ay khawaarijtu u baartar garaysanayso ama ay u weerarayso inay tahay dhaqaale yari iyo dacifnimo ka soo gaaray dhankii dhaqaalaha ilahooda dhaqaalaha oo dawladdu ay qaadatay tallaabooyin wax ku oola oo lagu dagaalamayo ilaahay ay dhaqaalaha ka tabcan jireen khawaarijtu dadkan ay ku baadi jireen 9 qarax oo 8 kamid ah goobo ganacsi lagula eegtay midka kalena uu ka dhacay xero ciidan ayaa dalka ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho qaraxaas 9 qarax oo mid uu yahay 2 kamid ah ay bambaanan yihiin 3 kamid ah waxa fashiliyay shacabka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada ammaanka oo laga hortagay kuwana waa dhaceen laakiin qasaarahoodu aad ayuu u yaraa goobahaas ay khawaarijtu bartaargaysatay isbuucii la soo dhaafay oo awoodoodii waxay lahaayeen isugu geeyeen waxay ahaayeen isugu jireen goobo ganacsi oo ku jiro spare parts carwooyin dad shacab ah ay lahaayeen guryo dad shacab ay degan yihiin iyo goobo miisas yar yar oo qudaarta dadka qutul daruuriga ka shaqeeya ay isticmaalayeen sababta ay targetsanayeen ama ay weerarayeen goobaha ganacsiga waxaanu ku micnaynay inay yihiin ama indhayntii gorfayntii ciidamada ku sameeyeen ay tahay dhaqaale yari soo wajahday khawaarijta iyo in aysan raali ka ahayn in kaamirooyinka lagu xiro magaalada hase yeeshee ganacsata Soomaaliyeed oo karaamo iyo sharaf ka mudan shacabkooda iyo ummadda Soomaaliyeed garab taagan dawladooda iyo hay'adaha ammaanka ayaa ku dhiiriday inay ku xiraan guud ahaan ganacsatada uga mahadcelinaynaa inta dhimanna ma filayo inay wax saa u sii buurno jiraan inta dhimanna waxaan rajaynaynaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan ku xirtaan khawaarij maantay awood ay kula dagaalasho malahan dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo caasimadda dalka waa og yihiin hadda ka hor sidaas oo kale ay isku dayeen inay hor istaagaan baalayaasha iyo kaamirooyinka magaalada bilicda oo lagu xiray gobolka Banaadir ku xiray markay muddo wadeenna waa ay sii wadi waayeen oo halka ay ku jabeen marka kaamirooyinkuna sidaas oo kale ay noqon doonaan shacabka iyo ciidanku iskaashanaya ayaa ka awood batay kana tabarbariyay markii ay khawaarijtu tabar kale heli weysay waxay ku qasbanaadeen inay joojiyaan kuwa halkaas ayaan uga baxaynaa dhanka kale qaraxyada aanu sheegnay asbuucii la soo dhaafay magaalada ka dhacay 3 kamid ah 3 kamid ah khawaarijta ayaa ku dhimatay qaraxyadaasi 3 kale oo dad shacab ah ay ahaayeen guud ahaan dhimashada asbuucii la soo dhaafay ka dhacday magaalada caasimadda ee Muqdisho oo khawaarijtu falal ay geysatay oo ay ku taarget galaysanayso goobaha ganacsiga waxay noqdeen qasaaraha ka dhashay 6 dhaawacuna wuxuu noqday 17 oo isugu jira khawaarijtii falalka geysanaysay shacab Soomaaliyeed waxba ka galabsanin iyo dad aan maxay ahayd goobaha ka dhawaa
shantii December ayaa laba dab ka dhaceen magaalada caasimadda Muqdisho 2 December iyo 5 December 5 December dab ayaa ka kacay guri ku yaala degmada laba dab ah ayaa ka kacay degmada Hodan labadaas ma reebin wax khasaare ah oo dhimasho iyo dhaawac ah wuxuu reebay khasaare ganacsi ama khasaare maaliyadeed ama hantiyada soo gaaray burbur soo gaaray goobtii dabkaasi u qabsaday degmada Dayniile ayaa 2 December ayadana sidaas oo kaleeto dab kala ka kacay wuxuu gaarsiiyay dhimashada hal qof iyo dhaawaca 7 qof oo kaleeto markaan u nimaano shilalka ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo gobolada dalka degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir 4 December gaari ayaa shil ku geystay kaasoo khasaare gaarsiiyay dhaawac 4 qof ma jiraan wax dhimasho ah oo shilkaasi uu sababay ama ka dhashay laakiin dhaawaca 4 qof ayaa ka dhashay deegaanka Garas Baalley qof muwaadin ah oo shacab ah oo dumar ah ayaa meydkeedu laga helay xare barakac halkaasoo dadkeedu ay raadinayeen 6 December meydkaas la helay ayaa baaristii isbitaalku uu ku sameeyay waxa soo cadaatay inaysan jirin wax jir ah ama dhibaato ah oo meesha ka muuqatay laakiin faahfaahinteedu dhameystiran ayaan dadka la wadaagi doonaa sida wax ugu dhaceen laba qof ayaa ku dhimatay rasaas lagu furay sababtuna ay ahayd dad meel isugu soo xoomay ayaa rasaas lagu furay 3 December laba qof ayaa ku dhimatay laba kalena ay ku dhaawacmeen cidii falkaas geysatana gacanta ayaa lagu hayaa degmada Hodan gaar ahaan Tarabuunka 6 December ayaa qof kale wuxuu rasaas ku furay ciidan goob shaqo ka hayay hal qof ayaa ku dhaawacmay mana jiro khasaare inta ka badan gaari ciidamada leeyihiin gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed oo shilkaas qayb ka ahaa ayaa isna khasaare gaarsiiyay qoys ku safray wadada 15 October degmada Waabari gaarigaas iyo wadihiisiiba gacanta lagu hayaa iyaguna waxay dhaawac gaarsiiyeen 4 qof oo qoys ka mid ahaa sidaas oo kale 2 December askari ka tirsan ciidamada ammaanka ayaa sidaas oo kale isna qof rayid ah ama shacab ku dilay degmada Waabari askarigii oo baxsaday ciidamada ammaanku waxay wadaan howlgallo gacanta lagu soo dhigayo waxaan rajaynaynaa biidnillaahi baari in dhawaan gacanta lagu soo dhigo askarigaas falka dilka u geystay qofka muwaadinka ah isagana baaristiisii waa ay soo gabagabooday laakiin kaliya waxaan noo dhimanayna maxkamadda awood u leh horgeeyno ama soo hortaajino si cadaalad loo waafajiyo intaas waxay ahaayeen guud ahaan qaraxyadii iyo amni daradii ka dhacday magaalada caasimadda ee Muqdisho oo isugu jira qaraxyo ay qawaarijtu geysatay miinooyin ay ku xireen goobo ganacsi iyagoo kaamirooyinka ka soo horjeeda ama la dagaashan laakiin shacabka Soomaaliyeed oo garab taagan dawladooda ayaa ka tambadiyay inta kaleetana waa la xakameeyay maanta ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ku dhaqan magaalada caasimadda ee Muqdisho guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan gaarsiinaynaa in amniga magaalada iyo gobolada dalku uu aad u xasiloon yahay oo uu wanaagsan yahay marka laga reebo qawaarijta sida dhuumaalaysiga meelaha ugu xureysa waxa xusid mudan xalay 6 December in ay qawaarijtu mooto ku soo rareen waxyaabaha qarxa halkaas oo markii hore goob ganacsi oo muwaadiniin Soomaaliyeed ay leeyihiin ay qarxa ku xireen qaraxii markii uu dhacay kadib ayaa shacab Soomaaliyeed iyo ciidamada ammaanka iskaashanaya ay soo eriyadeen qawaarijtii burcadda ahayd oo goobtaas meelada ku xirtay mooto bajaaj ay ku sideen qaraxyo kale ay ugu tala galeen inay goob ku xiraan ayaa meeshii ku fashilantay ilaahay wuxuu ku halaagay laba kamid ah qawaarijtii mootada saarnayd oo qaraxa waday halka mid kamid oo dhaawacana ciidamada ammaanku ay gacanta ku dhigeen kaasina gacanta ku jira maxkamadda awood u leh gacanta lagu sameeyo maadaama uu dhaawac yahay sida ay qabaan shuruucda iyo qawaaniinta dalka u yaala iyo shariicada islaamkuba wuxuu xaq u leeyahay in la dabiibo lana daweeyo hay'adaha ammaanku waxay u fidiyeen gargaar caafimaad oo lagu dabiibo laguna daweynayo isagana marka uu soo bagsado maxkamadda awood u leh ayaa lagu simi doonaa oo la horgeyn doonaa biidnillaahi baari dhanka kale waxaan ku soo gabagabaysanaynaa in howlgallo guud ay dalka ka socdaan gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo gobolada dalka howlgalladaas oo loogu talagalay in amniga dalka lagu xaqiijiyo haddana xaaladda ammaan ee dalku aad ay u wanaagsan tahay marka laga soo reebo gulufkii dagaal ee qawaarijta lagu wiiqayay iyadana waxaa faahfaahin badan naga siin doonta oo aan ka sugaynaa in ay nala wadaagaan wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo diyaar garowga ciidamada ay ku jiraan kaas oo ciidanka daraawiishta booliska ay qayb ka tahay dhanka kale ciidanka daraawiishta booliska Soomaaliyeed iyo ciidanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo iyaguna howlgallo uga jiray gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan oo lagu dhexdhexaadinayay dad walaalo ah oo ku dagaalamay ayay howlgallo joogto ah ciidanku ka sameynayaan ilaa 48 tuulo oo dhammaantood hoos yimaada degmooyinka Mahadaay Aadan Yabaal iyo degmada Cadale oo ka kala tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe degmooyinkaas dadka ay ku dhaqnaayeen oo dadka walaalaha ay ku dagaalameen ciidamadu waxay u sameeyeen howlgallo joogto ah wacyigelin baraarujin waxa sidaas oo kale laga furay
maxkamad cadaaladeed oo garsoor oo ka furan deegaankaas si dadku loo kala waafajiyo cadaaladda dadkii falalka halkaa ka dhacay dembiyada gaarka oo ku lugta yeeshana iyagana ciidamada ammaanku gacanta ku dhigeen waxaana la saaray maxkamadaha awoodda u leh iyagana dhowaan ayaan filaynaa in cadaalad marintooda ay ka soo baxdo xaaladihii ammaan ee dadka walaalaha halkaa ku dagaalamay aad ay u degan tahay mana jiraan wax dhibaato ah oo guud ahaan dalka oo dhan ka taagan marka laga reebo qaraxyadan iyo khawaarijtu ku taargadaysanaysa goobaha ganacsiga dhanka kale ugu dambayn waxaan rabnaa in shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah iyo gobolada dalka aan u gaarsiino in ay meesheedii taagan tahay halkeedii ay taagan tahay in 25 bisha January 2024 ay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo soo saaray warqad looga dalbanayo muwaadiniin Soomaaliyeed oo degan guryihii ama dhismihii dhulkii uu lahaa dabdamiska iyo hoggaanka dhismaha ciidanka booliska Soomaaliyeed warqad ayaa taliska booliisku uga soo saaray muwaadiniinta Soomaaliyeed lagu wargelinayay si u baneeyaan dhulkaas oo loo isticmaalo dantii guud ee markii horeba loo aasaasay waxaan dadka xasuusinaynaa in wali waqtigu socdo meesha lagu gaaro 25 January 2024 ay hay'adaha ammaanka gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed u idman yihiin in la tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan dadka ka dhaga adeegay fulinta awaamirtaas ka soo baxday taliska ciidanka waa mahadsantiin shirkeena jaraa'id maanta taas ku saabsan yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.